hay'adda Iwaada ee ka shaqeysa arrimaha samafalka iyo taakulaynta dalka jilicsan ayaa maanta halkan oo ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ugu qaybisay qoysas danyara raashin dhameystiran. qoysaskan danyarka ay loo qaybiyay raashinka dhameystiran oo ahaa dalka danyarta ee ku nool magaalada Burco ayaa hay'addu ugu tala gashay inay ku afuraan bisha barakaysan ee Ramadaanta. gudoomiyaha hay'adda Iwaada Sheikh Aadan Xasan Saciid oo go'horeyn balkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinka dhameystiran ee ay u qaybiyeen qoysaska danyarta ee ku nool magaalada Burco si ay ugu afuraan inta ka hadhay bisha barakaysan ee Ramadaanta. waxaanu yiri sida tan walaalayaal maanta waxaynu joognaa goobtii aynu ku qaybinaynay raashinka iyadoo aynu ku jirno bishii Ramadaan. maanta waa maalintii 18aad weeyaan Ramadaan bartankeeda. alxamdulillah bilfadlillah hadda maanta waxaynu halkan ku qaybinaynaa ilaa 100 reer baynu u qaybinaynaa raashinkii ay isku soomi lahaayeen bisha Ramadaan inteeda ka hadhay. walaalayaal barakallahu fiikum wa jazaakallahu khayran. waxay ka mid tahay mashruucani mashaariicdii Iwaada ay waday ilaa iyo bilowgii iyo Ramadaan hortood ay soo waday ilaalankan waan ku guda jirnaa oo uu soconayaa. maanta qurana ma ilaa biri iyo maalmahan ilaahay fadligiisa waynu wadi doonaa. waxa aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa marka hore ilaahay baa mahadle subxaanahu wa ta'ala. mar labaadkana waxaan mahad u celinaynaa walaalihii ka soo qayb galay ee walaalahooda ma garanaysaay tabaalooyinku ay heleen iyo abaaruhu ma garanaysaa soo gaarsiiyay ma garanaysaa mucaawimadan. ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku kordhiyo. waxaan leenahay jazaakallahu khayran walaalayaal waxaad soo bixiseen waa taasoo way gaadhay walaalihiin. baaqiga hadhayna way soconaysaa oo maalmahan oo dhan ma garanaysaa waynu wadaynaa. ciddii kale ee ku soo biiraysa wax ku soo darsanaysaana ha ku soo darsato oo waynu wadaynaa bisha Ramadaan. marka garanaysaa ka qayb gala oo walaalihiin aad iyo aad bay baahidu ay u fara badan tahay. dumad fara badan baa jirta oo ma garanaysaa meelaha qaxoontiyada iyo tuulooyinka iyo xoolaha ay ka baxeen baa jooga. marka si aynu meelo fara badan u gaarsiino ha laga qayb galo oo ma garanaysaa arintan sidaas oo kale lagu soo dhiirado ha laga qayb galo walaalayaal. waxa weeyaan waa mar kale iyo Iwaada ayaynu ma garanaysaa mashruuceedii weeyaan socday oo biyihina ay dhinac socdaan ma garanaysaa guryihii aynu dadka masaakiinta aynu dhisaynay iyaguna way u socdaan. marka raashinkanina waxa weeyaan qayb weyn buu ka yahay. baahi aad u fara badan baa jirtay ha laga soo qayb galo walaalayaal. barakallahu fiikum wa jazaakallahu khayran. dhinaca kale waxa iyaguna u mahad celiyay hay'adda Iwaada dadkii danyarta ahaa ee maanta loo qaybiyay raashinka dhameystiran leh waxaana yiraahdeen sida tan alxamdulillah rabbil caalamiin. horta marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa. marka xigta walaalaha iyaga noo keenay cuntada noo keenay ayaanu u xamdinaqaynaa waa u ducaynaynaa. ilaahay ubadka iyo adduunka iyo meeshii ka soo keenay ilaahay ha u barakeeyo. ilaahay anana dhadhamasho faraha nooga yeelo. ilaahay ha u barakeeyo iyagana ubadka iyo adduunka iyo halkay ka soo saareen iyo halkay ka keeneen ba Allah ha u barakeeyo. kay u soo dhiibana ilaahay baraka ha geliyo isagana baraka ha siiyo. waanu ducaynaynaa waana siiyo waa noo keeneen waa u ducaynaynaa. waa bir Ramadaan ilaahay risaaqada ha u furo qorsi waasaca ha siiyo ubadka ha u barakeeyo adduunyada ha u barakeeyo meeshii ka soo saareen ha baraka ha u geliyo. hay'adda Iwaada noo keentay waa xamdinaqaynaa. waa aad iyo aad baan ugu xamdinaqaynaa. raashinka noo keenay waa xamdinaqaynaa aad iyo aad baan ugu xamdinaqaynaa. ilaahay baan u mahadnaqaynaa. oo horeynta ilaahay baan u mahadnaqaynaa isaga weynoo waaxida. waxaanu ku xigta u mahadnaqaynaa hay'adda la yiraahdo Iwaada oo na soo gaarsiisay raashin farfariisiya oo uu hogaaminayo Aadan Xasan. waanu mahadnaqaynaa intii dadkii laga keenay ee noo soo dhiibay iyo dadka noo keenay iyo dadka noo qaybiyayba waanu mahadnaqaynaa. ilaahay baana mahad iskale oo u sugnaatay. raashinkuna waa mid dhameystiran oo reer oo daqiiqdii oo sonkortii leh bariiskii leh oo shaahii leh oo saliidii leh oo dhameystiran oo reer. sidaasaanu igu mahadnaqaynaa ciddii allaala ciddii ka hawl qaadatay hawlaha. Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Cable TV Burco.